mas-uul ilaahay garanaya, dhakhtar ilaahay garanaya, injineer ilaahay garanaya, professor ilaahay garanaya, maalqabeen ilaahay garanaya, faqiir ilaahay garanaya. abaa hurayra radia allaahu canhu gaajo daraaddeed buu masjidka nebiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nebigu uu ka baxayuu ku dhici jiray. ninka reer miyiga ee magaalada madiine ku cusub ayaa intuu isku dultaaga odhan jiray, war maad waalan tahay meesha ka kax. markaabuu odhan jiray ma waali. abaa hurayra wuxuu leey waali maa waxaan la jiifee gaajaan la jiifaa buu yidhi. cumar baa ii yimiday, markaasaan cumar ku yidhi aayadda qur-aanka halkaa aayadda qur-aanka halkay ku soo degtay cumarow. markaasuu abaa hurayra wuxuu yidhi marka cumar aayadda qur-aanka aan weydiinayey garasho la-aaniga ma yahayn waxay iga ahayd cumar wejigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wejigaaga ku taalla intuu eego ha garto oo ha ku yidhaahdo abaa hurayra gaajaa ku hayse kaale ila soo xeraado ila soo cashee. imuu fahmina aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi halkii ku soo degtay. haddana abubakar baa yimid. abubakar waadna bal aayadda iiga jawaab halkay ku soo degtay. abubakarna ima garan oo ima fahmina aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi. waa abaa hurayra baahi baa haysa 3 maalmood iyo 3 habeen afkiisa cunto ma gelin. haddana abibakar iyo cumar inuu baahi u sheegta buu ayuu ka qarsanaya. inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan. waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtaray moogta soo maha inte soo maha. xanuunka waaga dhawata la buunbuuninaya adduunka la sheegsheegaaye mashruuc gaalow inakaba naguma socdoba xanuunkaas naguma socdo. cuquubo meel kale ku socota haddaad u yeedhata ka waran adigu. halkii beryihii hore dadku odhan jireen balaayo markay maqlaan meleblayo balaaya ku dhacday ayaa laga alla beri jiro la odhan jiray balaayo baydh. iminkana maanta maxaa la leeyahay balaayo soo baydh. xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay, intaabaa ka bogsatay, intaabaa u dhimatay, maxaad ka sheegi? muuminku balaayo ma sheego. muuminku nicmadda ilaahay buu ka sheekeeyaa. wa amaa binicmati rabbika faxadith. nicamta laga sheekeeyaa, balaayada lagama sheekeeyo. balaayada waa la qarsadaa. haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayo leh ilaahay baa waxa uu dhibaato igu sameeyay ayaa iga qabta. ayaa ilaahay kaa qaban? war ma hayad baa ilaahay kaa qaban? bal sheeg. muuminku balaayada ma sheego. abaa hurayra gaajadiisii cumar uma sheegin, abibakarna uma sheegin, uu qarsanayey. laakiin wuxuu bal siiro farsamo leh ayuu wejigaaga bal kolkay eegaan ha kaa dareemaan oo ha ku yidhaahdaan abaa hurayrow marka horeba ahlu sufaad ahayde oo magaalada madiina qareen iyo qarabo kumaad lahayne waad gaajootay ibna mari ha ku yidhaahdaan. iyakiina may fahmin. walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu igu soo baxayba halkaasuu nebigu ka fahmay. halkaa buu ka fahmay. yaa abaa hurayra kaale caawa aniga ila soo cashee buu ka yidhi. kaale ila soo cashee. koob caanuu nebigu ugu yimid reerkiisii. koob caanaa maxaa yaalla? koob caanaa ku yaalla nebi allow. yaa abaa hurayra masjidkii ku noqo ahlu sufiyoo dhan inoogu wadayeer caawa caanaha inala cabaane. waa koob caanaa. abaa hurayra nebi maxamed hadalkiisa maya ma odhan karo, laakiin niyaddan ka idhi buu yidhi koobkan caanaha adigoonba kugu fiicnaaye miyaa laguu dhiibaa? ha ku cibaadaysatid 2 habeene. ahlu sufuhuna waa raggaad garanaysidee masjidka deganaayo ayaga laftigoogu maalmaheeda waxma cunin. dee kollay nebigu kolkuu u yeedho ay yimaadaan ay fadhiistaan aduu kooradana abaa hurayra oo caanaha qaadoo siisii ka u horeeye la siiya hemin buu. laakiin nebi maxamed hadalkiisa maya may odhanayna way u yeedheen. uu u yeedhay aqalkii markay fadhiisteenna sidii uu ka malaynayay meesha u dhacday. yaa abaa hurayra buu nebigu uhi koobka caanaha qaad, ninka ugu horeeyana u dhiib, ha kana qaadin buuhi ilaa isagu kuu soo celiye mooyaane. waa koob caanaha. ragga loo yeedhana waa raggee? ahlu sufa. kii horeeya markaasuu u dhiibay. waan eegay waa caano halkoogii jooga. kii kale aan u dhiibay halkoogii. 90-70 nin iska dhe. markaasuu nebigu yidhi yaa abaa hurayra ayaa hadhay ii sheeg. yaa rasuulallah adigii aniga hadhay.
fadhiiso adu cab waan cab ku celi haddan waan cab ku celi ilaa aan idhaahdo ilaaha xaqa kula soo saaray baan ku dhaartee caanaha meel ay caloosheeda ay ka maraan oo bannaan haddeeto layguma hadhin baan idhi buu yidhi deedna markaasaan hambadii buu nebigu qaatay hambadii buu nebigu cabay alayhi salatu wasalaam waxaan ka wadaa fuqaradoodu baahi way qabeen laakiin baahidooda ma sheeganayn baahidooda iimaankaa daboolayay iimaankaa daboolayay wallaahi waxaan u baahannahay maanta ummadda in iimaanka loo dhiso ummadda in ilaahay lagu xidho ummadda in aakhirada loo jeediyo ummadda in diintooda macaanka diintu ay leedahay loo sheego taan maanta u baahannahay waa taas ducaad ma noqonaa mise cubaad baan noqonaa bal kala doorta yaa u diyaar inuu noqdo daaci caabida waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila dacaa ila allahi dacaa baa horaysa qum facandir baa horaysa wacamila saalixanna waa la dambaysiiyey aadaankaa horeeya salaadaa ku xigta dacwadaa horaysa camalka wanaagsan baa ku xiga nebi baa adduunka imanaya risaalad baa loo soo dhiibayaa dacwad buu bilaabayaa dacwadda markuu bilaabo ayaa ummaddu diinta u soo jeesanaysaa markaasaa mujtamaca noloshooda diini ka muuqanaysaa lidaalika dacwaddu asaaska diinteenna islaamka weeyaan markii dacwad la helo ayaa ummaddu diinta jeclaan deedna diinta inay bartaan oo ay ku camal falaan oo ay ku dhaqmaan markaasaa markaa ummaddu ay diinta macaankayga dhadhamin